filimkeena waxuu ka bilaabmayaa Jini oo iskuul cusub galaysa waxayna si kadisa ugula kulmaysaa saaxiibteed ugu dhow wayna ku farxayaan inay iskuul wada dhigtaan kadib Jini waxay soo eeganaysaa jadwalka fasalkeeda waxayna si kadisa ugu dhacaysaa arday la dhaho Hani waxa uu arkayaa in magaciisa magaca ku xigta ay tahay ardaydan hortaagan waxaana ku oranayaa waxaynu noqon doonaa saaxiibo ee barasho wanaagsan laakiinse Jini iyadoon salaantii ka qaadin waxa ka gundhaysa saaxiibadeed si ay u soo barto saaxiibteed kale waxaanay noqonayaan asxaab kadib fasalkii ayaa la gelayaa waxaana uu sheegayaa macalinka cusub inuu qof walba la fadhiisan karo saaxiibkiis Hanimna waxa uu ka codsanayaa inuu la fadhiisto Jini maadaama uu yahay Hani arday dheer waxa uu macalinkii ka codsanayaa Jini inay iyadu la fadhiisato xagga dambe Jini saaxiibteed ayaa ku qancinaysa arrinkaas wayna yeelaysaa kadib Jini waxa ay daaburka ku ogaanaysaa inuu Hani yahay arday ku xariifsan fasalka kadib Jini waxay isku dayaysaa inay kiciso Hani misayna macalimadda warag laakiin mid ka mid ah ardayda ayaa arkaya una sheegaya macalimadii way xanaaqaysaa waxayna Hani weydiinaysaa su'aalo laakiin Hani waxa uu ku oranayaa ma garanayo waxayna ku amraysaa inuu dibadda uga baxo fasalka kadib Jini waxa uu keenaysaa buugga physics-ka soo akhristo una garan waayay su'aalo mar dambe Hani waxa uu arkayaa Jini wax soo sooranaysa waxayna u sheegaysaa inay jeceshahay inay wax soo soorato kadib Jini waxa uu sheegaysaa saaxiibadeed inuu ahaa Hani ardayga ugu sareeya fasalka una xanaaqsan tahay maadaama uuna caawin isagoo arkaya waraaqdeedii maran uu sheegaysaa inay ku farkarayso inay isaga kacdo balse waxay arkayaan ardaydii iskuulka ku cararaysa dhinaca garoonka waxayna arkaysaa Hani oo ciyaaraya waxayna isku dayaysaa inay sawirato laakiinse flashtii kameradeeda ayaa Hani indhaha ka galaysa kadib Hani wuxuu isku dayayaa inuu daydayo gabadhii sawiranaysay kadib Hani waxa uu sheegay inuu arkay markay Jini sawiranaysay laakiinse isagu uu dhibsanayay flashta indhaha ka galaysa Jini way diidaysaa inay raali geliso wayna ka cararaysaa laakiinse wuxuu isku dayayaa inuu joojiyo kameradii kana qaado isagoo raba inuu sawirada masaxo kadib waxay isku dayaysaa inay ka dhufato waxayna kaxaysanaysaa baaskiiladeeda Hanimna uu ka daba kaxaysan Jini way xanaaqsan tahay waxaan isku dayaysaa inay ku gadido baaskiilka laakiinse iyadaba ku gadoomaysa waxaana soo gaadhaya nabar Hanim wuxuu isku dayayaa inuu caawiyo waxaana ku dhahayaa waxaan joogi doonaa garabkaaga waana ku caawinayaa Jini waa lagu dheeraanayaa waxayna ku noqonaysaa guriga waxayna sawranaysaaba isagii maalinka xigta waxay u sheegaysaa asxaabteedii waxa dhexmaray iyadii Hanim shalay toole waxayna u sheegaysaa inay Hanim kala kurantay naxariis saaxiibteed waxay u sheegaysaa inuu Hanim jecel yahay ayna tahay inay cadayso jecelkiisa waxaanay ka tuurayaan furayaasha baaskiilkeeda siduu Hanim u kaxeeyo kadib Hanim uu ogaanayaa waana kaxaynayaa laakiin daqiiqado yar kadib waxa uu gaarsiinayaa goobtii baska Hanim oo ka cadhoonaysa waxayna isku dayaysaa inay u sheegto asxaabteedii laakiin waxay arkaysaaba Hanim oo barbar socda maalinka xigta waxay arkaysaa inuuna iman fasalka Hanim waxayna isku dayaysaa inay la xiriirto waxayna ogaanaysaa inuu xanuunsanayo waxaana u sheegayaa inuu buugga ay hayso saaxiibkii leeyaysiiso maalinka dambe uu imaado ayaa waxa uu arkayaa Jini iyo asxaabteedii iyo isku turtuuraya buuggii waxaana uga qaadayaa isagoo xanaaqsan saaxiibkii waxa lagu jiraa fasalkii waxaana u sheegayaa macalinku inuu ugu celin doono cid walba gacanta taagta casharka waxaana uu arkayaa Hanim in ay Jini doonayso inay gacanta taagto laakiinse ka noqonayso waxaana uu taagayaa gacantii waxaana uu macalinkii ku soo celinayaa casharkii waxaana mar labaad iyo mar saddexaad taagayaa gacantii ilaa intay Jini casharka ka fahmayso laakiinse macalinku wuu xanaaqayaa waayo waxa uu ogyahay inuu Hanim xariif yahay kadib ardaydii oo dhan waxay la wada safanayaan Hanim waxayna wada taagayaan gacmaha Jini waxay warqad ugu qoraysaa inay weydiisan karayso macalinka laakiinse ay ka baqanayso inay macalinka istiriiraan kadibna Hanim waxa uga jawaabaya warqadii in aanu u xanaaqsanayn oo caadi u la hadli karayso Hanim hooyadii ayaa imanaysa iskuulka waxaanay ka dalbanaysaa macalinka inuu inankeeda ka kiciyo gabadha la dhaho Jini taasoo ogtahay inay Jini ku fiican tahay waxbarashada laakiinse ay uga baqanayso in ay ku raadayso dhaadhaanimadeeda Jini hooyadeed ayaa maqlaysa waxaana isku dayaysaa inay la dirito Hanim hooyadii Jini waxaasoo dhan way maqlaysaa aad ayayna uga xanaaqaysaa daqiiqado yar ka bacdi Hani wax isku dayayaa inuu Jini ag fadhiisto laakiinse Jini waa uga kacaysaa
waxaana isku dayayaa inuu weydiiyo waxa ay la xanaaqsan tahay. waxaana u sheegaysaa inay ka xanaaqsan tahay hadalkii ay ka tiri iyada Haanim hooyadii. waxayna weydiinaysaa sababta ku kaliftay inuu Haanim doorto inuu iyada la fadhiisto fasalka. kadib Haanim waxa uu sheegayaa inuu la fadhiisan jiray gabadh aan fiicnayn, deetana uu arkay inay iyadu inan wanaagsan tahay, go'aansadayna inuu la fadhiisto. kadib Jiini aad ayuu la dhacay saaba Haanim. maalinka dambe ayaa u sheegayaa macallinkii inuu jiro tartan heeso ah. ardaydii u diyaar garoobaysa tartankii ayaa waxay ku cararayaan wiil si waali ah ugu dhex heesaya roobka. waxaana isku dayayaan raggii ammaanku inay joojiyaan, laakiinse Haanim waxa uu siinayaa gacan, waxaana uu la heesayaa wiilkii. kadib maalinkii tartanka ayaa Jiini waxa ay dareemaysaa inay heestuba iyada ku socoto. maalinka xigta Jiini waxay ogaanaysaa inuu baasay Haanim uguna sarreeyey maadadii uu garan la'aa su'aalaheeda maalinkay maclimaddu weydiinaysay. kadib Haanim waxa uu ku casuumayaa in ay wada baxaan, laakiinse waxa uu casuumayaaba ardaydii oo dhan. maalinkaasi wuxuu noqonayaa maalin ay soo wada ciyaaraan oo farxad leh. marka ay kala tagaanna waxaa isku soo hadhaya iyadiyo Haanim. waxay tegayaan hodheel waxayna dalbanayaan cunto, laakiin Haanim ma haysto lacag, waxaana uu iska dhigayaa mid lagu dhufto kale. waxaana u baxayaa dibadda, waxaana gacanta qabsanayaa Jiini. sidaas ayuuna kaga baxsanayaa isagoo sheegaya inuu bixin doono maalin dambe. maalinka ku xiga waxay tegayaan beer, waxaanay ku qorayaan magacyadooda geed. kadib Haanim waxa uu Jiini soo gaarsiinayaa gurigeeda, waxaanay ugu qoraysaa gacantiisa sawir si uu mar walba u xusuusnaado. laakiinse Haanim waxa uu sii eegayaa Jiini si aanu mar dambe la kulmi doonin. intaa wixii ka dambeeyana Haanim waa la waayayaa. sanado badan ka bacdi Jiini iyo asxaabteeda wada fadhiya oo sheegaya inuu Haanim weli aanu ka soo noqon Ameerika ayaa sikadiisa ugu soo gelayaa. Jiini isla maalinka waxa ay cabaysaa maandooriyo badan, waxaana uu isku dayayaa Haanim inuu gaarsiiyo gurigeeda. Jiini weli waxay ku arkaysaa Haanim inuu ku sawran tahay calaamadii ay iyadu ku sawirtay. Haanim sidoo kalena waxa uu arkayaa in ay xifdiday xusuusaheedii oo dhan. kadib Jiini waxay isku daysaa inay la hadasho Haanim, waxaana uu sheegayaa inuu Ameerika ku noqonayo. Jiini waa ay qaylinaysaa, waxayna u sheegaysaa asxaabteedii inay weli jeceshahay, laakiinse saaxiibteed waxay u sheegaysaa in ayna faa'iido ka hayn arrinkaas. laakiinse Haanim saaxiibkii waxa uu sheegayaa wixii helay Haanim oo dhan inaanu tegin Ameerika. hooyadii xanuunsanaysa garabkeeda istaagay una iibiyey gurigoodii si uu ugu masruufo. Haanim waxay isku dayaysaa inay la hadasho, laakiinse Haanim waxa uu ku odhanayaa inama anfacayso iminka inaan isku soo noqono, waxaa ka soo wareegtay sanado badan. kadib Jiini waxay maqlaysaa saaxiibkeedii madrasadda oo sheegaya in maalinkii heestii ugu horreysay uu qaaday uu sameeyey saaxiibkeed, una sameeyey gabadh Jiini la dhaho. Jiini markan isma dhiibayso, waxaana isku dayaysaa inay u dirto sawiradii xusuustooda Haanim. Haanimna waxa uu fahmayaa inay Jiini tegayso meeshii xusuustooda. in yar ka bacdi Jiini waxay arkaysaa inuu yimid, waxaana u sheegayaa in ay weli sidii tahay, waxaana isku raacayaan beertii iyo geedihii ay ku qoreen magacyadooda. waxaana u sheegayaa inuu jeclaan doono una joogi doono agteeda.